khudbadaada waxaa ka muuqatay inaad aad isu haysaan qolada maamulka oo siciidani iyo aarankiisa iyo dawladda halkan ka jirta qoladaani waa powerful way meesha ayaga haysta ilma adeerna waa tiin adiguna waxaa rabta inaad wax noqotid waxay kugu xantaan intii hadda lagu sheegay iyo hal mid oo ah annaga iyo farmaajo isqabannay marka wasiirnimadiisu iska eexaystay farmaajo hoos ka galay tiim farmaajo iyo fahad wuxuu noqday loyal oo reer Puntland haddii la yiraahdo xataa hal la gowraco kama hadlo waxyaabahaas isu ku geliyeen Soomaalidu waxay ku maamaadaa gacantaadan goyn karin waa la dhunkadaa nimankan ilma adeer baa tihiin meesha hadda ayaga jooga inaad isu bareedhaan oo heshiisaan adiguna aad power base kaaga fahantid this is your power base halkan waa meesha ka duulaysa haddii halkan aadan power ku lahayn xamar nin ka shaqeeya tahay maalintii lagu bedelaa iska tagaysaa laakiin halkan waa deegaankaagii political kaaga maaragtay career-kaagu hadduu bilowday in dhalinyaro baa tahay kuma ekaan doono wasiirka iyo xildhibaanka hadda aad joogtid aad baan kugula talinayaa hal su'aal baan ku weydiinayaa March 2020 shir weyn baa Garowe loo qabtay wasiiradii iyo xildhibaanadii oo dhan way yimaadeen anuu ayaga ah xildhibaanada iyo wasiirada waxaan ku yiri wasiir Jawaal maxaa ku dhacay waxa uu diiday inuu yimaado dani bay isdagaalsan yihiin ma arki weyday inta Puntland ee ummada ee halka joogtay oo matalisay oo wasiir aw tahay oo xildhibaan aw tahay oo mustaqbalka rabtid haddii aad dantaas shirka inta leego Puntland lahayd dani daraadiis oo uga baaqatay nin saaxiibkii waxay gacanta aan goyn karo waa la dhunkada neeyo markii hore oo ku bilaabay laba qodob horta ilaahay wuxuu ku qoray waayimis mar walba qofku inuu principle qadiyay aan ka muhiimsan inuu inta helo ama qof raac anigu moralkayga ma siin karo ama shaqdimeedkayga ma siin karo inaan state-ka ama mas'uuliyadda leeyahay boostan aan ku ganacsado wasaaradda waxa soo maray $2 bilyan sanadkii ayaan ka warhayn reportka soo gudbina haddaan lacag ku raadinayo ama lacag raadinayo iyaga haydan aniga gacanta dhunkada aniga gacanta dhunkada ma aynot ogo aniga haysta iyagu idinkeedii halkan ay wax ku dhacaan xaga kuma dhici karaan marka taa ogo tan kale in dhalinyaro baa tahay mustaqbal baa leedahay siyaasadda kan anigu aaranjana aqoon baan wasiir noqdo horta aaranjana waaga waddanka oo ka hor safiir baan ahaa oo shaqaysanay cabdiweligaas markuu joogay dawladdiisa isma haynana cabdiweligaas tiimkiis saaxiib baan ahayn sharaxaaj farax wasiiraha si fiican baan soo dhamaysan nimankii maanta yimaadeen iyo qorshaha la yimaadeen baan ka boodeen meeshii baan taagan marka taana niyadda soo gasho ma aha inaan isbedeli karo haddaan xilkayga kursigu ila weyn yahay saa sheegtaan yeelaa kursiga macnaheena malani qadiyadda ila leh kursiga reer baa leh ninka rabaan bay siinay